aad baan idin salaamay saaxiibayaal idin lahaantiinba meel kasta dunida ka joogtaan iyo waqti kasta oo aan joogtaan waxaan idin leeyahay waqti kasta oo aan joogtaan haydii wacnaado sida title-ka muuqaalka saaxiibayaal ku arkayseen maanta waxaynu ka hadli doonaa waxaynu gorfayn doonaa waxaynu isu sheegi doonaa waxaynu isu baraarujin doonaa shan qodob oo ay tahay in qof kasta ka dheeraado inta noloshiisa ka dhiman hadiiba se aad ka dheeraan weydo waa shan qodob oo ku dhaxalsiinaya ama se aad ka dheefiso inaad noloshaada ka qoomamayso inaad noloshaada iska ciilkaambido shan qodob oo isugu jira samaan iyo wanaagba kuwa wanaagana hadii aanad sameyn ay tahay inaad samayso kuwa aan ku fiicneen hadii ay tahay inaanad sameyn oo aad ka dheeraato shantan qodob saaxiibayaal shan qodob oo aan anigu soo xulay ma aha waa daraasad ay sameysay gabadh lagu magacaabo Brownie gabadhaas oo u dhalatay waddanka Australia gabadhaas waa dhakhtarad waxay ka shaqeyn jirtay dhakhtar especially waxay joogtay qaybta gargaarka degdega ah ee la soo dhigo ama se la keeno dadka qarka nolosha ka sii saaran ama se dadka xaaladooda caafimaadka kan tahay dadkaas waxay weydiin jirtay gabadhaasi laba su'aalood waxay weydiin jirtay maxay tahay waxa aad ka qoomameynayso ee aad soo sameysay intii aad noolayd ee aanay ahayn inaad sameysay waxaad imika iska ciilkaambiyeyso waxaad imika ka warwarayso oo aad leedahay maxaad waxa u sameysay ayay dadka weydiin jirtay waa su'aashooda koowaad su'aasheeda labaad ay dadka bukaanka ah ee nolosha qarka ka sii saaran haddii noqoto inay xaalad gabow ku sugan yihiin hadday noqoto inay xanuuno halis la darseen ay weydiin jirtay waxay ahayd maxay tahay waxa aanad noloshaadii soo sameyn ee aad jeceshay inaad samayso ama se ay ahayd inaad soo samaysaa kolka dadku falcalino kala duwan ay ka bixinayeen balse waxay ka sinaadeen shan qodob shanta qodob waa shan qodob oo ay dadka badidii ama se bulshadu la nooshahay balse baraarujin ka hayso oo aysan dhaadanayn kolka opportunitiska imika haystaan ee uu ka mid yahay caafimaadku ee ay ka kow tahay dhalinyarnimadu ay waayaan si ay gartaan inaysan shanta qodob ama aysan la noolaan lahayn ama se ay la noolaadaan qodobkeena koowaad ayaa noqonaya ee ay dadkii qarka nolosha ka sii saarnaa ay ka sinaayeen ee ay ku jawaabeen kolkii la yiri maxaad jecleed inaad noloshaada soo samayso oo aanad soo sameyn oo aad ka qoomameynaysaa qodobka koowaad ee ka sinaayeen wuxuu ahaa in qof kastaaba yiraaho waxaan jeclaan lahaa inaan noolaado nolosha rabay balse aanan noolaadeen noloshii dadku ila rabeen waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha aan doonayo anigu noolaado balse aanan noolaan noloshii dadku ila rabeen way dhacdaa inay nolosha bulshada aad ku nooshahay ama se aad ku dhex nooshahay halka home baa ka baxaya maanta iyo muuqaalo dhawaaba qolkii wax kuma duubin qolka marka wax ku duubayso lighting baad isticmaalaysaa lightingkaasi nugu iga yara dhibay sida laajigeed waxaan iska jeclaystay inaan kor isaga soo baxo oo viewga ku duubo waxay yiraahdeen dadku ama qase qodobkii koowaad ee ay ka sinaayeen wuxuu ahaa waxaan jeclaan lahay inaan noolaano noloshaanu rabnay balse aanan noolaan noloshii dadku nala rabeen waxa jirta dadka markaad bulshada aad ku dhex nooshahay markaad waxoogaa wada noolaataan dadkaasi waxay maleeyaan inay gabi ahaanba garanayaan qaabkay tahay inaad u noolaato dadkaasi waxay kula jeclaanayaan nolol waxbay kula jeclaanayaan dabeed adigii waxaad arkaysaa waxay dadku kula jeclaanayaan inaad noqoto dabeed doonistaadii iyo noloshaadii aad adigu jeclaydba intaad iska hilmaamto ayaa nolosha ay dadku kula jecel yihiin aad noolaanaysaa adigoo dadka tooda eegaya balse aan taada eegayn balse ma dhaadanid adigu ama se inagu ma dhaadanin kolkaa gadaal ayay dadku ka dhaadaan oo ay ka xasuustaan inaysan noloshii rabeen jeclaan ee bulshadu noloshay la jeclayd ay jeclaadeen bulshaduna nolosha ay kula jeclaadaan haddii ay ka arki waayaan oo aad taada ka raacato waxa suuraa inay kaa cadhoodaan maxaa yeelay bulshadu waxay isu taqaanaa inay gebi ahaanba garanayaan qaabkii ay ahayd inaad u noolaato xitaa ayagoo noloshii ayagu noolaan lahaayeen aan garanahayn qodobkaas inaynu intaa aynu ku fahanay waan rajeynayaa qodobka labaad ayaynu isaga sii daadegi doonaa qodobka labaad ee ay dadka badidii ka sinaayeen ee la yidhi maxaad jeclaan lahayd inaanad noloshaadii samayn ee aad samaysay ee aad ka qoomameynaysaa wuxuu noqday inay yiraahaan waxaan jeclaan lahay inaan noloshayadii si xad dhaaf ah u shaqeyn lahayn dadka qaar bay kaga dhigtaa shaqo waqtigii nasiimadaha nafta u diida waqtigii familiga iyo qoyska la qaadan lahaayeen waqtiga u diida ama se nafta u diido oo ogolaan kaliya ta ka daba dhaca oo shaqo galin hore galin dambe habeenba shaqeeya kaliya firaaqaha inta ay gudaan xaqiiq waxa ah in qofku uu ka qoomameyn doono arrinkaas
markaad qof bini aadan tahay noloshani waa ayaamo oo way kooban tahay waxaad yaa dheeftaada iyo waxaad cuni lahayd eebba ayaa kuu qoray kaliya ta waqtigaaga saddex qaybood oo qayb kamida iska shaqayso qaybta kale kamidana qoyskaaga ehelka asxaabta yaa iskala qaado oo iskala wadaag qaybta saddexaad yaa waa nafta seexi oo iska huri balse haddii aad ka daba dhacdo shaqo waa qodobkii labaad ee ay dadkii nolosha qarka ka sii saarnaa ay ka sinaayeen in aysan ahayn inay noloshooda soo sameeyaan ee ay ka qoomiyeen marka qodobka labaad halkaas aynu ku dhaafi doonaa laba qodob baynu hadda soo dhaafnay qodobkii koowaad wuxuu ahaa inay dadku ka sinaayeen waxaan jeclaan lahayn in nolosha aanu anagu jecel aanu noolaano balse aanan noolaan noloshii dadku nala jeclaayeen qodobka labaad ayaa isna noqday waxaan jeclaan lahayn in aanan waqtigeyga intiisii ugu badnayd aanan shaqo ku qaadanay qodobka saddexaad aynu sii daadegi doonaa qodobka saddexaad ee ay ka sinaayeen dadkii nolosha qarka ka saarnaa ee ay ka qoomameeyeen isla markaasina la godgaleen ayagoo ka qoomameynaya qodobkaasi inay sameeyaan waxay ahayd inay yidhaaheen waxaanu jeclaan lahayn geesinimo aanu dareenkayaga ku cabirno waxaa jira dadyow dareenkooda inay cabiraan ka habrada oo ka baqa walow dareenkooda hadduu doono ha saxsanaado haddana dareenkiisaas inuu cabiro yaa ciduu doonaba ha uga habradee wuu ka habranayaa wuu ka baqayaa dadkaasina way ka qoomameeyaan sifadaasi inay la soo noolaayeen jeerkaasina qoomamadaa way la godgalaan kolka dareenkaaga inaad adigoo asagoo dareenkaagu ka midhan yihiin mid caadifadaysan inaad si geesnimo leh dareenkaaga u tabiso oo aanad kolnaba ka habranayn aad ayay u san tahay oo inaad dareenkaaga wixii kula saxan iyo wixii kula khaldan waxaasna waa khalad waxaasna waa sax aad si cad u cadayso oo geesinimo leh ayaa wacan halka aad ka habran lahayd ee aad ka aamusi lahayd kaasina waa qodobkii saddexaad ee dadkii nolosha qarka ka sii saaraa ay la godgaleen iyagoo ka qoomamoonaya kolka leeyahay dadka nolosha qarka ka sii saaran ugama jeedo dadka sii dhimanaya qof kasta ilaahay unbaa og goortuu dhimanayo balse waxaan uga jeedaa qof la opportunity uu markii hore hayay dhalinyarnimadu waa fursad aad iyo aad u ballaaran kolka gabowdo fursadda ma haysid marka waxyaabaha aad jecelayd inaad dhalinyarnimadaadii ku dhaqanto ayaa jiraya oo aanad ku soo dhaqmin oo aad weynaantaada ka qoomameyn doonto sidoo kale qofku markuu xanuunada halista la darso yaa uu caafimaadkiisii waayo wuxuu waayay opportunity-gii uu haystay kolka uu caafimaad qabay oo markuu caafimaad qabay waxyaabo badan oo uu sixi karay waxyaabo badan oo uu sameyn karay ayaanu sameyn karay yaa xasuusun ka qoomameynaya waxyaabo niyo kolkaad caafimaadka qabtay inaad waxaa samaysa ma ahayn kolkaad caafimaadka qabtay inaad waxaa samaysa ayay ahayd kolkaad dhalinyar tahay inaad waxaa samaysa ma ahayn kolkaad dhalinyar tahay inaad waxaa samaysa ayay ahayd kolkan leeyay dadka nolosha qarka ka sii saaran inaad si fiican ila fahamtay ayaan rajaynayaa qodobkaasina qodobkeennii saddexaad ayuu noqonayaa qodobkeenna afraad aynu sii daadegna saaxiibyaal qodobkeenna afraad ayaa saaxiibyaal noqonayaa ee ay ka sinaayeen dadkii nolosha qarka ka saarnaa inay ka qoomameeyaan wuxuu noqonayaa waxaan jeclaan lahaa inaan joogteeyo xidhiidhka asxaabtayda fiican asxaabta xunada maaha asxaabta fiican waa anigu waxaaban aaminsanay galladaha uu eebba bixiyo galladaha ugu qaalisan inay ku jirto yaa inaad saaxiib wanaagsan heshaa kolka qodobka afraad ee ay dadkani ka qoomameynayaan waxay ahayd inay joogteeyaan xidhiidhka ay la leeyihiin asxaabta fiican maxaa yeelay asxaabta fiican ama se saaxiibka wanaagsan wuxuu ku jiidayaa xagga wanaagga oo dhan halka saaxiibka xumi uu kaaga jiidaya xagga xumaanta yaa haddii aad saaxiib xun la saaxiib tahay waxaad halis u tahay inaad xumaato maxaa yeelay oraah qalaad ayaa waxay oran jirtay waxaad tahay shakhsi ahaan adigu calcaliska shanta qof ee aad saaxiibka tihiin kolkaa sida shirkaduhu qofka shaqaalaha markay shaqaalaysiinayaan isaga hubiyaan sidaas leeg inaad isaga hubiso saaxiibka aad dooranaysa ayaa san oo suuban isna ka sareeda roon inaad yaa saaxiibka aad asxaabta iskala saaxiibto maxaa yeelay saaxiibku waxaanu kuu jeedi karaa wanaagga sidoo kale wuxuu kuu jeedi karaa xumaanta markaa inaynu asxaabta iska hubinno jeer kale kolka aynu asxaabta wanaagsan la saaxiibno aynu joogtayno xidhiidhkooda ayaa san maxaa yeelay saaxiibka wanaagsani wuxuu kuu jiidayaa wanaagga mise dhanka wanaagga yaa asxaabta wanaagsani
dad saaxiib wanaagsan la saaxiib tahay wax kastoo wanaagsan uu helo kula soo wadaagaya asxaabta qaar baa isu guurisay xitaa oo gabadh wanaagsan markay arkaan aysan ayagu fursad ay ku guursadaan aysan hayn u guuriyay saaxiibkood saasan gabadha wanaagsan u dhaafay way jirtaa kolka qodobkeena afraad ee ay dadkii nolosha qarka ka saarnaa ka qoomameeyeen ee ay ka sinaayeen wuxuu noqday inay yiraahaan waxaan jeclaan lahayn inaanu joogtayno xiriirkii asxaabtayda fiican oo dabcan sida ka muuqata ay badidood soo dayaceen inay joogteeyaan xiriirkaasi asxaabta fiican waa tahay saaxiibayaal shanta qodob ee ay dadkaasi ka sinaayeen waa kuwa shantan qodob ma hubo dadkan daraasada laga sameeyay gabadha reer Australia ee dhakhtarka ay ka sameysay diimaha ay kala haysteen kullay diimo kala duwan ay haysanayaan laakiin arrimahan ma khuseeyaan diimaha balse waxay khuseeyaan nolosha qofka adigu imika ay daawanaya bal waxaad ka soo qaadaa in ay tahay inaad ka mid tahay dadkaas inaad tahay inaad joogto gabaabsi uu kugu yahay waqtigu inaad ka mid tahay dadkan nolosha qarka ka sii saaran oo kullay aynu wada gaarayna xaaladda oo haddii geeri ku deyso xitaa gabow ayaan ku deynayn bal waxaad ka soo qaadaa isagoo cimrigaagu maanta yahay 98 jir oo su'aashan lagu soo bandhigo oo lagu yidhaaho imika waa tan oo waad gabowday daadaadu waa 80 ama 90 waxaad noo sheegtaa waxa ay tahay inaanad noloshaadii soo samayn ee aad samaysay ee aad maanta ka qoomamaynayso ee aad leedahay maxaan waxa u soo sameeyay jecleen lahayd inaanad waxaa soo sameyn bal waxaas warqad iyo qalin ku qor kale way fara badnaanayaan tiri maxaanad imika adigoo booskaas gelinaya sidii qof 80 jirkiisii jooga maxaanad jeclaan lahayd inaad noloshaada soo samayso oo aad noloshaadii soo samaysay page ku qor page-ka labaad waxaad ku qortaa maxay tahay waxa aad jeclaan lahayd inaad noloshaada soo samayso balse aanad samayn ee aad dib uga dhacday isagana page-ka labaad ee ku xiga ku qor tabeed labada page markaad midna ku taxdo wixii aad jeclaan lahayd inaad noloshaada soo samayso midna aad ku taxdo wixii aanad jeclaan lahayd inaad noloshaada soo samayso balse aad soo samaysay waxa aad halkaa ku qortay inta aanad noloshaada kolka heerka u gaadho aanad ka qoomamayn hadda jooji oo wixii aad jeclayd inaad samaysana samee wixii aanad jeclayn inaanad samaynna totally ka had oo jooji haddii kale waxa xaqiiq ah ila cimrigeenu iska koobayay waqtiguna uu soconaya maalinba maalinta ka dambaysa waa maalin kasta oo sii dhawaato geeridaada iyo gabowgaaga marka waxa sax ah inaad wixii ku soo baxay jeceshahay inaad samayso inaad sidooda u samayso wixii aanad jeclayn inaad samayso ee aad imika ku soo baxay marka booskii 80 jirkayga iskalisayna aanad samayn annaga xitaa waad nala soo wadaagi kartaa oo qaybta hoose committee ayaad noogu reebi kartaa waa tahay saaxiibayaal horta xagga hore ma idinka soo salaamay haddaan idin salaamin hadda ayaan idin salaamaya maba xasuusto hadda 7,200 oo subscribe meelahaas ayaynu sii maraynaa I hope inaynu intaynu ku jirno bishan 10k subscribers gaari doono 10k sii socon doono aynu muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh